isku aadka horyaalka Premier League fasal ciyaareedka cusub ayaa la soo saaray iyadoo kulamada isbuca kobaad ay yihiin kuwa holac kadib kulankii maanta ay isugu yimaadeen xiriirka FA-ga Ingiriiska ee maamulo horyaalka Premier League. Kooxda difaacanaysa horyaalka ee Manchester City ayaa kulanka ugu horeeyay tijaabo adag kala hortagi doonta kooxda Gunners oo aan haysanin 22 sano kadib tababare Arsene Wenger, waxaana iska hor imaan doona laba tababare oo u wada dhashay Spain kuwaasoo marka soo wada xamaashay horyaalka Premier League. Manchester United waxay nasiib ku yeelatay inay kulanka ugu horeeyay horyaalka ku ciyaarto fasal ciyaareedka cusub gurigeeda, waxayna Old Trafford ku soo dhaweyn doontaa kooxda Leicester City. Kooxdii tagtay finaalka Champions League ee Liverpool waxay kulanka furitaanka la ciyaari doontaa West Ham oo fasal dhamaadkan ku sigatay inay heerka labaad u laabato, balse markan doonaysa inay kaalinteeda qaadato. Pellegrini ayaa dib ugu soo laabashadiisa horyaalka Premier League la kowsanayay inuu booqdo garoonka Anfield Road oo ay necab yihiin kooxuhu inay booqdaan. Kooxda soo dallacday ee Cardiff City waxay la ciyaari doontaa Birmingham, halka Fulhamna ay la ciyaari doonto Crystal Palace. isku aad